ومر كلي برنامجكي رجدي دالنتا أصحابتي دقاليقا اسكو صالواشا وعانا مانتي waxaan ku hayaa video run ahaantii aan aad kugu diyaariyo aan jeclahay inaad wax badan ka faa'iidi doonto ma tahay mid doonaya inuu guul ka gaaro shaqadiisa noloshiisa dhamaan guud ahaan mustaqbalkiisa ma tahay mid guul ka doonaya ma tahay mid doonaya inuu gaaro hadafka uu doonayo adduunkan ma tahay mid doonaya inuu guul ka gaaro adduunkan meel uu adduunka ka degi lahaa u goobto ma tahay mid doonaya in wax walba uu qabanayo u fududaadaan haddaba haddii jawaabtu ay tahay haa videogan adiga ayaan ku diyaariyey mar kale waad ku mahadsan tahay daawashada videogan asxaabtida qaaliga waxaan ku dhiirigelinayaa in aad mas'uuliyad ka saartaan wax walba oo qabanaysiin inaad noloshiina u sheegtiin waxa aan qabanaysiin sida u qaban lahaydeen waqtiga ku qaban lahaydeen iyo xilliga aad qaban lahaydeen waa waxa ugu muhiimsan ee wax lagu qabto waa waxa ugu muhiimsan ee aad guul oo gaari karto wax walba oo aad qabanayso wax walba oo mas'uuliyad aad ka saartaahu waa waxa ugu horeeya ee guusha gaarsiinaya waa waxa kugu fiican ee aad ku xaqiijin karto wax walba oo adiga aad doonayso mas'uuliyaddu waxay ku dareensiinaysaa wax walba oo laga baahan yahay mas'uuliyaddu waxay ku dareensiinaysaa hawsha ku taala iyo miisaaniyadda ay leedahay waxay ku dareensiinaysaa yacni waxa laga doonayo inaan qabato mas'uuliyaddu ku dareensiinaysaa sidoo kale mas'uuliyaddu waxay ku dareensiinaysaa xilka aad hayso iyo ammaanada lagu dhiibay ee berri qiyaama lagu weydiin doono mas'uuliyaddu waa wax aad u muhiim ah oo rabbi quraankiisu nagu sheegay haddaba haddii aad doonayso inaad guul ka gaarto adduun iyo aakhiraba waxaad u baahan tahay mas'uuliyadda lagu dhiibay inaad si sax uga soo baxday u baahan tahay talooyinka muhiimka ah ee aan ku siinayana waxaa ka mid ah kow in aad midaada noloshaada guud ahaan inaad mas'uuliyad dhab iska saarto iyo sidoo kale qoyskaaga then aad meesha aad ka shaqaynayso ama goobta shaqada aad ka hayso in aad ka saarto mas'uuliyad dhab ah inaad ka saarto oo qof walba mas'uuliyadda uu ku dhiibto amase shaqada markaas aad hayso aad si wanaagsan uga soo baxdo hay'adda aad la shaqayso amase meesha aad ka shaqaydaba in sharcigeeda aad ilaaliso nidaamkeeda aad ilaaliso xoolaha lagu dhiibay aad u ilaaliso sida adigoo leh u dhaqaaleeyo sida adigoo leh boolida ugu ilaaliso sida adigoo leh u difaacdo sida adigoo leh u wanaajiso sida adigoo leh waayo waxaan adiga ayaa lagu aaminay wax aan lagu aaminana waa sida wax adiga oo leh inaad u isticmaasho ama si uga taxadarto markaad wax wanaajiso mas'uuliyadda sida aad u qaadan lahayd ayaa waxaa lagaga baahan yahay inaad mas'uuliyadda u qaadato wixii aad hadlaydo bini'aadanka qalad waa samayn karaa it doesn't matter qaladka aad samayso waa inaad qirato dan aad ka barato wax qaladka aad samayso isla markaana aad saxdo midka dambe ee imaan kara aad ka fakato isweydiido maxaa dib ku imaan kara kan kugu dhacay sidee oo gudbi kartaa taas ayaa ah midda aad uga gudbi karto caqabadaha kusoo wajahi kara haddaba wax ka bara qaladkaaga qiro mas'uuliyadda wax walba oo adiga aad samayso la wadaag fikrado kala duwan idea kala duwan la wadaag qofka aad la shaqeydo istiqaaska ula shaqeydo waxaa macquul ah inay ka buuxdo fikrado aad u muhiim ah kuwaas oo hormarin kara meesha adiga aad joogto kuwaas oo guul gaarsiin kara shirkadda amase meesha adiga ka shaqeyso keliya waxaad u baahan tahay inaad la sheergaraydo qofka supervisorka ku ah aad weydiido su'aalo weydiido fikrado la sheergaraydo wax la wadaagto taas ayaa ah midda horumarka ku gaarsiinaysa meesha adiga ka shaqeyso guud ahaan waxaan ognahay mas'uuliyaddu inay tahay wax aad cajiib u ah taas oo guul gaarsiinaysa nolosheena guud ahaaneed iyo midda naqaas ahaaneedba haddaba dardaarankayga wuxuu yahay inaad mas'uuliyad dhab ah iska saarto wax walba oo qabanayso mas'uuliyad aad ku xaqiijiso wax walba oo lagu dhiibo taas ayaa ah midda ku gaarsiinaysa horumarka adiga aad doonayso haddaba waxaan kaa doonaya inaad la sheergaraydo asxaabtaada bejkan rajada dhalinta la yiraahdo aan u sameeyey guud ahaan bulshada Soomaaliyeed qaasatan dhalinyarada war aan ka kacno fadhiga aan isdirigelino niyadeena aan dhisno si aan u gaarno horumar waara fadlan subscribe-ka ha iloobin ama share-ta ha iloobin midkay tahaba horumar iyo guul ay ii tahay
waan ku faraxsanahay inaad mar kale daawanayso videogayga